Mareykanka ayaa ciidamo ku soo daabulaya gacanka Hormuz loo yaqaano maraakiibta diyaaradaha xambaara iyo diyaaradaha sida xoogga leh bombooyinka u tuura ee loo yaqaan F-15, F-35 iyo B-52 iyo gantaalada difaaca ee Patriotka lagu magacaabo ayaa lagu arkay iyadoo Mareykanku soo dhoobayo aagaas isla markaana diyaaradahu dul haadayaan oo kormeerayaan gacanka Persia. dadka qaarkood waxay sheegayaan in diyaaradahan sidaan hubka wax kumaado Iran laftarkeeduna ay heeganka ugu sareysay gashay waxayna ku hanjabtay inay maraakiibta laftarkooda weerari doonto haddii Mareykanku isku dayay bay yiraahdeen inuu weerar soo qaado iyadoo Iran ka cabsi qabtay inuu Mareykanku doonayo inuu beegsado meelaha warshadaha nukliyeerka Iran ay ku beerato. arrintan waxay ka sii dartay markii Mareykanku cunaqabateen dheeraad ah ku soo rogtay Iran birta aluminiumka koborta naxaasta iyo birta steelka loo yaqaano lafdhabar u ah Iran inaanay loo iibgeynin. Iran ayaa tahay warshadaheeduba kuwa ku shaqeeya alaabtan. Iran waxay kaga jawaabtay inay ka baxayso heshiiska nuclear deal ay ka qayb ahayd heshiiskaas waxaa galayna Iran oo dhinaca iyo quwadaha shanta ee Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Ruushka iyo Shiinaha. sidaas waxaa ka dhawaajiyay madaxweynaha Iran Hassan Rouhani iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Jawad Zarif. waxaad moodaa in Mareykanku weligiiba uu la buuxa ugu tukubayay Iran waxaanu Iran ku eedeeyay mar haddii ay heshiiskiis nuclearka ka baxayso inay rabto inay adduunka iridaha u laabto. sidaas waxay eriga gaarka Mareykanka u qaabilsan Iran Parian Hook wuxuu intaasi raaciyay waanu ku adkeynaa cunaqabataynta ilaa Iran bedelayso habdhaqan akeeda. waa sidoo sheegay eriga gaarka Mareykanka u qaabilsan Iran waxay ku hanjabtay inay muddo 60 cisho ah ku nafaqeyn doonto nukliyeerkeeda haddii aanay dawladaha kale ee heshiiskan qaybta ka ah qayb hayn gardarada iyo dantaansiga Mareykanku ku wado Iran. saate dawladaha kale ayaan Mareykanka kula socon weerar ama dagaal uu Mareykanku ku qaado Iran waxayna ku adkeysanayaan inuu dhowro heshiiskii hore loo galay ee nuclear deal 2015. waxa Iran lagu eedeeyay inay beegsanayso maraakiibta saliidda ceydin qaada ee ka gudbaya Mareykanka Hormuz iyadoo hadda la sheegayo in 4 markab la beegsatay waxyaabo huba oo aan la aqoonsan wax ay yihiin 4 markab oo laba Sacuudi Arabiya leedahay midna Norway halka kalena uu leeyahay isu taga Imaaraadka Carabtu meel dhow dekada Fujairah inkastoo aan weli la cadeynin dhaawaca soo gaaray maraakiibta. gacanka loo yaqaan Hormuz ayaa marinka ugu weyn shidaalka adduunku ka gudbo waxaana meel istaraatiiji ah balse waxa dhinaca ka haysta Iran taasoo marka la eego xaaladda kacsan ee ka dhaxaysa Iran iyo Mareykanka ay halis ku tahay shidaalka adduunku soo food saarto halis cudursubi. si kastaba ha ahaatee waxa dadka siyaasadda odoras ay sheegayaan ama saadaalinayaanba inay tahay dagaal maweydo oo Mareykanku rabo inuu dagaal ku qaado Iran. ma sahlana doonto baa la yiraahdaa dagaal Iran lagu qaado waayo Iraq aad iyo aad ayay uga dul weyn tahay Iran. waxa kaloo Iran ku badan dul buureley oo ku adkaan doonto inuu Mareykanku ciyaar ku galo. saate waxa laga baqay inuu duqeyn cirka la beegsado warshadaha nukliyeerka Iran. dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa dalkiisa uga digay suurtagalnimada ah in Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ay gantaal ku harqiso Israa'iil haddii xaaladdu ay sii kululaato. waxa kaloo la sheegay in qiimaha shidaalku sare u kacay 1.5% xaaladda soo cusbaanaatay darteed ilaa iminka ma jirto dadaal diblomaasiyadeed oo ka dhex shaqeynaya labada dhinac balse aynu dhowrno xaaladda ayaamaha soo socda iyo sida ay isu bedesho.